الله الرحمن الرحيم غيرت قيمها يا قدرتها naga mudan ee hawada nagala socotay ku soo dhawaada horjoog TV qodobkan maanta waxaynu uga hadli doonaa qiyaarta aynu jecelnahay buug uu qoray ninka lagu magacaabo John Bolton kaas oo uga hadlayo xaalka madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump sidoo kale buugan waxa uu mas'uulkaasi ku soo daray isla markaana waxyaabaha ka mid ka ah buugan waxyaabaha sidoo kale buugan ku jira ayaa waxa ay yihiin kuwa dad badan fajac iyo layaab ku riday buugaag badan ayaa ilaa iyo hadda laga qoray madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump laakiin buugii uu dambeeyay ee uu qoray la taliyihiisa hore ee ammaanka John Bolton ayaa soo jiitay indhaha dad badan marka la eego eedeymaha uu ku qoray isla markaana uu buugiisa ku soo bandhigay Bolton ayaa warbaahinta la wadaagay qaybo ka mid ah buugga uu dhawaan daabici doono oo ka hadlaya muddadii uu la shaqeynayay madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump iyo waliba waxyaabihii uu goobjooga u ahaa madaxweynaha ayaa isku dayay inuu hor istaago daabacada buuggan oo magaciisa lagu sheegay qolka ay waxaani oo dhame ka dhaceen qodobka amase boontiga ugu horeeya ama lambarka koowaad ayaa waxa uu yahay Britain hub nuclear ah ayay haysataa Britain waxay ahayd dalkii saddexaad ee tijaabiyay hubka nuclearka sanadkii 1952 waxaana ka horeeyay oo kaliya dalka Mareykanka iyo Ruushka balse madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa waxay arintaas ku ahayd arin ugub ah waxaana dalka Britain ay ku jirtaa dalalka farakutiriska ah ee ku hubeysan hubka nuclearka arinta ku saabsan hubka nuclearka UK ayaa la soo hadal qaaday mar uu madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump kulan la lahaa ra'iisul wasaarihii hore ee dalka UK Theresa May sanadkii 2018 mid ka mid ah la taliyaasha Theresa May ayaa arintaasi soo hadal qaaday sida lagu qoray buugga ka hadlaya Donald Trump isla markaana uu qoray ninka lagu magacaabo John Bolton waxaan idin weydiiyay ma awood nuclear ayaad leedihiin ayuu yiri madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump Mr. Trump waxa uu sheegay inaysan kaftan ka ahayn madaxweynaha hadalkaas uu yiri isla markaana ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Britain Theresa May uu horteeda ku weydiiyay inay haystaan hubka nuclearka qodobka kale ayaa waxa uu yahay Finland Ruushka ayay ka tirsan tahay Bolton ayaa soo qaatay tusaale kale oo uu ku muujinayo in aqoonta guud ee madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ay tahay mid aad u liidata isla markaana waxa uu sheegay inuu aqoonta faqri ka yahay Mr. Trump ayaa la sheegay inuu mar weydiiyay madaxii hore ee madaxtooyada aqalka dalka Mareykanka ninka lagu magacaabo John Kelly in Finland ay tahay qayb ka mid ah Ruushka iyo in kale sida lagu qoray buugga Mr. Bolton hadalkan ayuu weydiiyay ka hor inta uu madaxweynaha Ruushka kula kulmin caasimadda Finland ee Helsinki qodobka saddexaad ayaa waxa uu yahay Venezuela in lagu duulo waa haboontahay Mr. Trump ayaa laga soo wariyay inay mar la qumanayd in Mareykanka uu ku duulo Venezuela sida lagu qoray buugga ninka lagu magacaabo John Bolton Trump ayaa mar u haystay in dalkaasi oo ku yaala koonfurta America uu ka tirsan yahay dalweynaha Mareykanka sida lagu daabacay buugga uu qoray John Bolton nacaskii Bush aha waa qodobka afraad inkastoo Trump ay caadi la ahayd in lagu duulo Venezuela haddana caro ayuu ka muujiyay duulaankii Afghanistan oo waxa laga soo wariyay inuu yiri sida lagu qoray buugga dagaalkaasi waxa geystay nacas lagu magacaabo George Bush qodobka shanaad waxa uu yahay Trump shinaha ayuu ka dalbaday inay ka caawiyaan ololihiisa doorashada sida laga soo xigtay buugga Bolton oo qayb ka mid ah lagu daabacay wargeyska The Wall Street Journal Trump ayaa ka dalbaday shinaha inay isticmaasho awoodeeda dhaqaale si ay uga caawiso Trump in loo soo doorto doorashada madaxtinimo ee dalka Mareykanka taasi oo lagu wado inay dhacdo bisha November ee soo socota ama waa bisha November oo dhowr bilood kadib inuu soo wajaha qodobka lixaad waxa uu yahay Trump ayaa ku amaanay Xi Jinping waa ninka madaxweynaha dalka Shiinaha cadaadiska uu ku hayo muslimiinta Shiinaha ee lagu magacaabo Uiguris Bolton waxa uu buugiisa ku sheegay in Trump uu u muuqday inuu raalli ka ahaa markii uu Xi difaacay go'aankii Shiinaha ay muslimiinta ka soo jeeda Uiguruska ugu ciqaabayeen
Trump waxa uu yidhi waa arrin wanaagsan inaad xeryo u dhisto oo aad ku hayso muslimiinta sida lagu sheegay buugga uu qoray Mr. Bolton. Dowladda Shiinaha ayaa la sheegay inay xeryahaasi ay maxaabiis ahaan uga hayso ilaa iyo 1 milyan oo muslimiin ah kuwaasi oo u dhashay muslimiinta Shiinaha ee laga tirada badan yahay kuwaas oo la yiraahdo Uyghurs. Qodobka ugu yaabka badan ayaa waxa uu yahay qodobka 7. waxaana qodobkan uu ka hadlayaa in madaxweynaha dalka Mareykanka Mr. Trump uu damacay inuu ururka NATO ka saaro dalweynaha Mareykanka. Bolton waxa uu buugiisa ku sheegay in sanadkii 2018 uu Trump go'aansaday inuu dalkiisa ka saaro gaashaanbuurta NATO isagoo ka caraysay inaysan lacago badan bixinin xubnaha dalalkaasi ama xubnaha ururkaasi uu ku midaysan yahay. waxa uuna Mareykanka geli gaaray waa sida uu sheegay ninka loo magacaabo John Bolton god mugdi ah. waan ka baxaynaa mana difaacayno kuwa aan lacagihii laga sugayay aan weli bixinin ayuu yiri madaxweynaha dalka Mareykanka sida lagu qoray buugga Mr. Bolton. qodobka ugu dambeeya ayaa waxa uu Trump la sheegay ama waxa uu sheegay Bolton in Trump uu doonayo in muddo 2 xilli ka badan ah uu u tartamo ama uu noqdo madaxweynaha dalka Mareykanka. Mr. Bolton ayaa waxa uu sheegay in madaxweyne Trump uu hogaamiyaha Shiinaha u sheegay in dadweynaha Mareykanka ay aad u daneynayaan in isbedel lagu sameeyo dastuurka si Trump uu madaxweyne u sii ahaado in ka badan muddo xileedka 2 jeer ah. madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump in waxyaabahaas ama eedeymahaas aadka u faraha badan laga sheego ayaa waxa aysan la yaab ku noqon doonin dadweynaha Mareykanka maadaama ay uga barteen waxyaabo aad looga waswiso. madaxweynaha dalka Mareykanka Mr. Trump ayaa waxa uu ku soo caanbaxay inuu yahay madaxweyne cunsuri ah kaas oo dhibaato ba'an u geystay waa sida ay aaminsan yihiin dadweynaha Mareykanku guud ahaan dalka Mareykanka. madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa waxaa lagu tilmaamay siyaasigii ugu liitay ee dalkaasi soo maamulay tan iyo intii xorriyadda dalka Mareykanka uu ka qaatay dalweynaha Britain. waxyaabaha kale ee madaxweynaha dalka Mareykanka lagu xasuusto ayaa waxa ay tahay inuu muran joogto ah kula jiro Mareykanka ayaa waxaa lagu tilmaamay siyaasigii ugu liitay ee dalkaasi soo maamulay tan iyo intii xorriyadda dalka Mareykanka uu ka qaatay dalweynaha Britain. waxyaabaha kale ee madaxweynaha dalka Mareykanka lagu xasuusto ayaa waxa ay tahay inuu muran joogto ah kula jiro saxaafadda ka hadasha arrimaha saxaafadda aadka ugu dhun daloolaha arrimaha gudaha ee dalka Mareykanka waxaana la soo sheegayaa in madaxweynaha iyo waliba joornaalada ama wargeysyada dalka Mareykanka aysan isku wanaagsaneen iyadoona madaxweynaha dalka Mareykanka uu si joogto ah u adeegsado Twitterkiisa waxa uu Twitterkaasi soo dhigaa wax walba oo niyadiisa ku soo dhaca iyadoona dadku ay sheegayaan inuusan u muuqan inuu yahay madaxweyne dhan oo mas'uul ah. madaxweyne Trump ayaa waxa ay sumcadu ka dhacday kadib cudurkan caalamka ku baahaya markii uu soo ifbaxay iyadoona tusaale ahaan loo soo qaatay madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka ninka lagu magacaabo Barack Obama kaas oo waqtiga uu madaxweynaha ahaa uu dal ku yaala Afrika oo lagu magacaabo Liberia uu ka bilaabmay cudur la yiraahdo waa cudur aad u daraa isla markaana dhibaato baan u geystay dalkaasi kaasi oo sida la sheegay laga qaaday hergebka doofaarka kaas oo lagu magacaabi jiray madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka uu ugu doolaalo tagay isla markaana uu hergebkaasi ugu tagay wadanka Liberia ayadoona laga taqalusay halka madaxweynaha dalka Mareykanka Mr. Trump uu sugtay inta cudurkan uu baabi'inayo isla markaana uu dhibaatada u geysanayay dalka Mareykanka isagoona dalka Shiinaha ku eegtay cudurkan dhibaatada ba'an ku haya dunida. si kastaba ha ahaatee madaxweynaha dalka Mareykanka Mr. Trump ayaa waxa ay rajadiisu u muuqataa mid gaba ah isla markaana la filayo inuu talada aqalka cad oo mar kale ka soo muuqdo sida ay odorasayaan warbaahinta dalka Mareykanka iyo waliba dalka garadka ah. guud ahaan Mareykanka cudurkani waxa uu ka dilay dad gaaraya 120,000 ayaa cudurkani Mareykanka gudihiisa ugu dhimatay sidoo kale waxa uu soo ritay
2,255,000 qof ikhyaarayhi barnaamijka waa 55,000 2,255,000 barnaamijkii waa naga intaas nabadgeliyo